benzemana xabsiilo noqonaya waxaan sidoo kale eegi doonaa faahfaahinta markaa laga helayo sheekada ku saabsan Karim Benzema dadka qaar waxay leeyihiin haddii xukunka sanadka ah oo markaas xabsiga ku qaadanayo ma kulanka caawimo kaga bilaabanayo macna championka ma maqan yahay Real Madrid ma koobka adduunka haddii xukunka lagu rido koobka adduunka ma seegaya qaranka ma laga burinaya waxaasoo dhan aan eegi doonaa yani ninkii soo joog laga waayo soo jiifa laga helaa hadda asiga hawshan macna ma ku lug lahayn oo maxaa la yiraahdaa waxaan ka wadaa macna falka asaga cubcirka asaga ma sameeynin cubcirka asaga ma sameeynin asma ciyaarin laakiin maxaa lagu haystaa saaxiibkiisa ciyaaray rag kale wax ka duubtay muuqaalka ka duubtay ninkan maadaama isku dalna Benzema dhexdhexaadintii lagu helay markii ninka dalaalnimo baxar u galay khalasnimo madeynaysi waxa ay macnaa lugtaada meesha dhigeys ka fiirsanay la jooga ilaa hadarta macnaa dalaalnimo muqallasnimo uu galay macnaa cubcirtii asma ciyaarin saaxiibkiisa ciyaaray asla hadduu ciyaari lahaa xataa cubcirtaas waxbay ahayd u qabi lahay macnaa marka dad badan oo social media kaga falcelinaya arka oo Soomaali u badan oo iyaguna maaragtay si qaldan maaragtay u wajahaya kiiskan Benzema dadaaba qaar xataa diinta ka saareen ninkan sheekh waaye muslim waaye diinta islaamku haystaa laakiin kiiskan waa lagu helay inuu macnaha dhexdhexaadiyay garwadeen oo ka noqday sayaa saaxiibkiisa inuu badbaadiyo inuu rabo yani saaxiibtinimada ku fogaatay macnaha khasaara baxar ku jiro ka bixla waa macnaha waaya ninkii Benzema ahaa ayaynu markaa ka bilaabayna asiga soo qabo warkiisa Brinkinka isiine Brinkinka ku siina kadibna faahfaahinta galay waa tahay ninkii Karim Benzema ahaa waxaa lagu soo waramayaa in markaasi jeelka loo taxaabayo waryahanka Real Madrid Karim Benzema ayaa lagu wadaa in markaasi lagu helay dambi cusub oo hor leh oo ah inuu qayb ka qaatay fadeexadii Matteo saaxiibkii ee cajalada markaa laga duubay isaga oo Google dhaaf cubcir ah la sameeyay Anjeli taas oo markii dambana lagu xujeeyay inuu bixiyo lacag haddii kalena la baahin doono cajalada laga duubay waa ninka saaxiibkii ahaa Vilbuana Karim Benzema oo markaasi kulankii kiiskani markaas sababay in markaas uu qayb markaas looga dhigo waxa ay sababtay xitaa in xulka qaranka Faransiiska laga ceeriyo laga fasaxo laakiin gadaal loogu soo daray maxkamadda ayaa Benzema markaas ku xukuntay ama ku xukun dhigtay xukun sanad ah oo jeelka markaas loo dhigayo iyadoo oo ganax lacageedna markaas 75,000 oo euro ah uu bixinayo kaliya Benzema waxa lagu haystaa in uu macnaha lacag ahaan macnaha dadkii ay wax ka duubay inay wada xaajood ka dhex sameeyay oo falkaas qaybtaas uu ka soo galay bas dalaal camal waayahay ay muqallaso waayahay faahfaahinta haddii aan sii galana weeraryahankan haysta diinta islaamka Karim Benzema ayaa maxkamadda la yiraahdo the court of Versailles waxa ay markaa ku heshay dambi aad u culus oo ah inuu ka qayb qaatay isku dayga lacagta baad ah lagaga qaadanayay ninka la yiraahdo Matteo Vilbuana oo xulka qaranka Faransiiska ay markaa ka soo wada ciyaareen ama ay u soo wada ciyaari jireen kaas oo anjel galma ama film galma ah laga duubay sanadkii 2015 Karim Benzema waxa markaasi laga raacdeeyay ama laga cayriyay xulka qaranka Faransiiska markii Vilbuana uu markaasi la xiriiray booliska oo markaa uu u gudbiyay kiiska ragga anjelka duubay oo markaa asal ahaan ka soo jeeda Algeria ayaa waxay markaas saaxiib dhow leeyihiin Karim Benzema waxaana markii ay fadeexadan gacanta ku dhigeen ay la xiriireen Karim Benzema oo ay kala hadleen arinta jirta waxaana uu laacibku isku dayay inuu dhexdhexaadin ka sameeyo arintan Vilbuana ayaa u sheegay sida ay wax u jiraan iyo anjelka laga duubo u sheegay isagoo aan ogeyn Benzema u sheegaya isagoo markaa la wadaagay dalabka kooxdan burcadda ay anjelka ka duubay oo doonaya markaa in la siiyo lacag baad ah hadii kalena muuqaalkaasi ay baahin doonaan ama ay faafin doonaan Benzema waa soo baxay wuxuu u yimid ninkii ahaa Vilbuana wuxuu yiri warniyahow nimankaas ay la soo xiriiray oo asal Algerianka ah waxay dalbanayaan lacag ay dalbanayaan waa burcad muuqaalkaas ay ka duubeen adigoo xaalad fiican aan ku sugnayn oo cubcir sameynaya marka lacagtaas ina bixisid weeyaan iska bixi lacagtaas la waa macna warka
dalaalnimo ah waayahay marka tababara Didier Deschamps ayaa isaguna la xusuustaa in uu xulka ka ceeriyey isla markaana uusan kusoo darin tartankii Euro 2016 iyo koobkii adduunka 2018 oo dalkiisa Faransiisku uu ku guuleystay maxkamadda la yiraahdo the Court of Versailles waxaa markaa bishii October ay soo gunaanaday dhageysiga kiiskan waxaana maanta ay shaacisay xukunka ah in Karim Benzema uu markaasi ku dooday in aan wax dambi ah gelin lagu helay inuu qayb ka yahay falkan maxkamaddu waxay shaacisay in Benzema uu kiiskan qayb ka yahay waa soo helnay dhehwaana cadeynayna maxkamaddu waxay Benzema ku xukuntay 1 sano oo xarig ah iyo inuu bixiyo 75,000 oo euro oo markaasi lacag ganaax ah oo u dhiganta 63,000 oo gini ama 84,000 iyo xoogaa gogo ah 100 iyo xoogaa gogo oo lacagta dollarka Mareykanka ah in uu markaasi bixiyo sida warbaahintu ay sheegayaan sharciga Faransiiska ayaa markaa Benzema u ogolaanaya in uu dibadda ku qaato sanadka xariga ah ee lagu xukumay sidoo kalena wuxuu awoodi doonaa in uu ka sii mid ahaado xulkiisa qaranka Faransiiska waana arrin lagu farxo inkastoo laacibkani uu ka dhiidiyay arrintan sheegayna inuusan marnaba lug ku lahayn wax dambi ahna uusan sameynin oo ku adkaystay haddana in uusan jeelka geli doonin amaba xabsiga aan la dhigi doonin oo uu dibadda ku qaadanayo xukunkiisa isla markaana uu sii wadan karo ciyaarihiisa caadiga ah wax weyn ay u tahay isaga maadaama saaxiibadii kale ee kiiskan kula jiray dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay ay xirnaayeen jeelka ay jiifeen marka Benzema ma saameynayso in qarankiisa Faransiiska laga reebo koobka adduunka oo kiiskan dacwadiisa banaanku ku dhameysanaya xariga ama ha iibsado ama shaqo dawladeed ha qabto sidoo kale kulankiisa caawa waa ciyaaraya Champions League FC Sharif ay ka horjeedaan waa diyaar kiiskaasna isaga wax sabab kuma lahan marka waxaa jiro dadka social media kaga falcelinaya dhahay ninkan nin walba garweyn sheekh Malay iyo maxaa la ninkan diintu ka baxay iyo dadkaas maxaa la diintu ka baxay qof adima ma xukumin kartid mugtaa way diintu ka baxay maxay ku dheer macna faham darro oo haysato waay oo ay isleeyihiin ninkan isaga canjalka laga duubay saa galma sharci darro sameeyay canjalkan laga duubay dad asaas u fahansan laakiin ma ahan saaxiibkiisa Vilbuana oo badbaadinaya ninkan kiiskana 2015 oo dhacay hadda maxkamadda xukunta horta markay saas tahay ninkan yani hadii laga doodo xataa adin ma xukumin kartid diinta gooni waay ninkan ciqaabtiisa iyo wixii uu macnaha uu mudanayo waa la marsiinaa xagga alle u jirtaa marka Benzema laga soo tago meeqa oo adiga macnaha ku xigta falkaas amal ku dhacday diinta may ka bixin maya ma Soomaali meeqa ku dhacday diinta ma laga baxay maya marka ma xukumin kartid aad ma dhigi kartid diintu ka baxay ilaahay qalbigiisa daalacana ma ka kala macna ninkan ay tood aniga waxaan ognahay in macnaha nin diinta islaamka haysto oo asal ahaan ka soo jeedo Algeria dhalasho Faransiis haysta kiiskana waxa u keenay maadaama Vilbuana ay xulka qaranka iskala ciyaarayeen isagana uu asal Algerian yahay dadka Algerianka falkan sameeyeen oo muuqaalkan ay duubeen oo ninkan ay tood niyo adaan macna tulxi aham lacag Algeria isku nahay umarniyo ninkaas soo mareen kiiskiina lagu helay arinta diinta gooni waay falkan gooni waay koo dhaha marka hubsiimada الجيل السيستم إسكدايو وحيابها قارها اللي إسكدايو يعني الهاي يعني زي ما مركولو الكيسي نكون بدنين عاوة هاي ليك بحبة بقمنا هذا قورت كوجر هذا بتاذ كويس تكوده ورمرك آد معناها إن إلههم كودارية وحلاله وحكاه هراء مال مركقة هذا كبح هذا جوني هذا معناها لقط هذا قورت كوجر مد هذا كبح قف كلام معاكو ساري مد كلها قلنا بتكلم لنا إيش قلنا نقولوا دين تكبح هذه هرت بمساك مركي سوق على المدوكتي شنطة صلاة سيد لرو مودوكتا يعني هذا كبح حقله كعد حقله حسابي هذا لفتر حسابي صوم ما قال جوله حسابي هذا حسابي يعني الدين الإسلام كهاستاه كلية ما نكون رقمي وإلى شنا معقول ما راح يسكينا معها وايحي مركب كريم بنزيما وحلنا هاي نصيبه عن همبليان لنا maadaama xabsigiisa uusan galeynin oo banaan ku qaadanayo kulamadiisa uu ciyaarayo xulkiisa qaranka Faransiiska aysan saameyneynin koobka adduunka lagu arki doono همبليان لنا okay